الرحمن الرحيم. هدا waxaan dhex joognaa magaalada Makka al-Mukarrama khaasatan xaramka gudihiisa ayaan dhex fadhinaa isla markaasna waxaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku soo wajahan magaalada Makka aan u sheegaynaa in sanadkan aad iyo aad loo qaali gareeyo hoteeladii ay imaan jireen dadka xujayda ah isla markaasna oo magaalada ka socdo dumis aad u fara badan oo la duminayo dhammaan shawaaricda magaalada Makka oo la rabo in shawaaric cusub iyo nidaam cusub loo sameeyo marka dhammaan dadka Soomaaliyeed ee soo socda sanadkan cid allaan cid doonaysa in guriyo raqiis ah ay degaaniin oo aan hotel ahayn guriyo caadi ah oo filooyin ah laakiin xaramka in yar u jira waxa weeye waxay naga soo wici karaan in telefoonada hoos ku qoran isla markaasna emailkayga iyo facebookga iyo dhammaan meelaha la iskala xariiro oo dhan iyagana waxa weeye hoos ayaad ka arkisan ka dhaaniin haddii aad u baahan tihiin in dad ehelkiin ah oo caajis ah oo waayeel ah ama se dhintay in loo cumreeyo iyadana waxa weeye khidmadaasna waa la idin qaban karaa haddii aad rabtaan qof dhintay ama qof waayeel ah oo sidoo kale isaguna rabo in loo xajiyo isagana waxa weeye waa loo xajiyayaa khidmadaasna waa la idin qaban sidaas iyo dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.